بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مقعيق وأحمد عبد اللطيف دكتور سراجي. maanta wacyigelinteena waxay ku saabsan tahay xanuunka qalalka iyo daaweyntiisa. Waxaan ka hadli doonaa qaladaadka ugu badan ee la sameeyo xilliga daaweynta xanuunka qalalka. Xanuunka qalalka waa xanuun ku dhaca neerfaha waxaana keeno maansa ku dhalato maskaxda taas oo qalad ku samayso habshaqeynta caadiga ah ee nerviska. Xanuunkani ayaa daaweyntiisa waxay qaadataa waqti dheer. qaladka koowaad ee dadka sameeyaan waxaa ka mid ah in ay kala joojiyaan daawada qaadashadeeda iyo waqtiga qofka uu qaadanayo inuu joogteynteeda uu qaldo oo mararka qaar iloobo uusan joogto u qaadanin. Arrintaasna waxay keentaa in xanuunkii uu soo kaco oo qofkii dib uu qabto. qaladka labaad ee la gala waxay tahay daaweynta oo u baahan waqti aad u dheer in la siiyo qofka ilaa 5 sano iyo ka badan mararka qaar ay qaadataa. Sometimes marka waxaa dhacda in qofkii markuu uu waqti kooban qaato dawadina ay anfacdo inuu iska kala joojiyo oo isdhaho ama xanuunkii uu ka baxay. Dhaqso joojinta daawadana waxay keentaa xanuunkii inuu dib u soo laabto. qaladka saddexaad ee la sameeyo daaweynta qalalka waxaa ka mid ah qofka inuu dawo iskiisaga qaato asagoo oo ka tala qaadanayo bulshada qof ka mid ah oo sidaas oo kale in xanuunka qabay dawo loo qoray ku wanaagsanaaday qofkiina uu ka tala qaato uu yiraahdo daawadaana hadda ka hor la ii qoray waana ku fiicnaaday adigana qaado. taas waxay keentaa inuu qalad yimaado. sababtuna waxay tahay noocyada kala duwan ee qalalka daaweyntiisa way kala duwan tahay. qof ka mid hadduu ku wanaagsanaaday waxaa laga yaabaa adigana nooc kaleenta inaad ku wanaagsanaan kartid. haddaba haddii qof aad ku aragto xanuunka qalalka daawo iska qaadashada iskaaga ah waxaa ka wanaagsan inaad dhakhtar kala tashato nooca kugu habboona lagu siiyo. qaladaadkaas oo si joogto ah u yimaado waxay keenaan in xanuunkii uu soo kaco. qaladka kaleento aan aragno waxaa ka mid ah in qofkii daawada la siiyo mar walba uu xanuunka qabto taasna ay keento inuu ka bato dooska daawadiina ay wax weyn u tari wayso. xanuunka hadduu ku qabto hal mar wax culays lama dhakhtarkaaga ayaad ogeysiinaysaa. haddii joogto uu qofka u qabtana waxaad u baahan tahay inaad geyso isbitaalka ugu dhow markaas aad emergency ahaan ku caawin karo. aad iyo aad u mahadsantihiin.